محمود يحيى وويل يرو جرا wax ka yar 2 sano ayaa kula xanuunsanaya mid kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho xanuun daran oo ka dhashay cudurka jadeecada kaasi oo isku furay sanka iyo afka waxaana halkaasi ku lumay gabi ahaanba tubadii sankiisa neefsasho adag ayuu la dhibtoonaya wiilkaasi maraan kula kulmay isbitaalka Masaarida ee magaalada Muqdisho waxaana dhaqaatiirtu ay sheegeen in aan xaaladiisa caafimaad wax looga qaban karin gudaha Soomaaliya aabaha dhala wiilkaasi oo aan teleefanka kula hadalnay ayaa ii sheegay inuu joogo goob raashin lagu qaybinayo si halkaasi uu uga soo qaato waxyaabihii uu ku nooleen lahaa qoyskiisa waxaana sidoo kale hooyada dhashay wiilkaasi ay iyana ku xanuunsanaysaa gurigeeda oo ku yaala isla magaalada Muqdisho daahir cali kulmiye oo gudoomiyaha Alfa Trust ayaa Soomaalida u jeediyay qeyladaan ku saabsan wax u qabashada wiilkaasi yar dhakhtarka maanta ii sheegay wiilkan waa wiil muwaadin qasa waa ku qasbanaa hadii aan nahay dad Soomaali islaan ee muwaadiniin aan nahay waa ku qasbanaa in aan gacan ka geysano aan wadanka ka bixino sida uu dhaqsaha badan wax ugu qaban karno wax ay naga dhibayso malaha xanuunka hay ana dareemay ana aabe qof walba waxaan ka rabnaa oo islaan ay caawinto waxaan ka rabnaa islaan inay caawinto please aaba ahay oo dareemaya xanuunka walaalahey muslimiinta waxaan ka rabnaa inay caawintaan marraba inaan ku dheeraado oo salaam 8 toddobaad ka hor xaaladda wiilkan yar waxay ahayd sida tan taageerada Soomaalida ayaa wax weyn ka bedeli karta xaaladda wiilkan hadduu haleedmo waxaana haddii la iskaashado dib loo soo celin karaa caafimaadkii quruxda wiilkaasi